wallahi waa la ilmeyn doontaa muuqaalkan haddii aad daawato. haddii aad nasiib u yeelato uu ku soo gaaro, sii sheergaree walaal, si ay dadka kale ugu noqoto mid ay ku cibro qaataan. Aabba ayaa halkani ku xanuunsanaya. wuxuu dhalay aabbahani 7 carruura, midkoodna lama joogo isbitaalka. dhakhtarkii iyo dadkii isbitaalka ka shaqaynayay ayaa awlaaddiisa mid mid u wacaya si ay ugu yidhaahdaan u imaada aabbihiina oo xanuunsanaya. laakiin mid walba oo la waco waa uu ka dayrinayaa, ama wuxuu leeyahay ma imaan kara aniga, mashquulkayga adduunyo ayaa iga badan. alla xanuun badana. mid ka mida dadkii isbitaalka ka shaqaynayay ayaa hadda la hadlaya mid ka mida awlaaddii oo la leeyahay u imaaw aabbahaaga, maxaa kuugu dhacay? u imaaw aabbahaaga oo gargaar ayuu kaaga baahan yahay, oo garab ayuu kaaga baahan yahay. maanta adiga ayuu kuu baahan yahay. sidee wax u wadaa? u imaaw aabbahaaga. laakiin waa uu ka biyo diidayaa. aabbihii ayaa la weydiinayaa imise carruur waaye ilmahaaga? wuxuu leeyahay aniga ilmahayga waa 7 carruur. iidhib, aniga ayaa la hadlaya wiilkani. حامد بابا حامد انت يا ابني واصبر على الجرح يا هذا انت تضرب حاج يعني حاج مساعد abe ii imaaw ayuu leeyahay aabbihiisa. maxaa kuugu dhacay? waan kuu baahanahay, ii imaaw, maanta anigaa kuu baahan. aabe ayuu leeyahay aabbihii, isagoo weliba xaaladiisu aad ay u daran tahay, weliba hadalka dhibaya. ogsoonow, haddii aad aabbahaaga ama waalidkaaga ku caasido, awlaaddaada ayaa kugu caasin doonto. maxaa ka xanuun badan in awlaaddii aad dhashay aad ka weyso garab maalinkii aad u baahnayd? alla nolosha mararka qaar xanuun badana. qof walba oo waalidkiisa ku caasiya, ogsoonow awlaaddaada ayaa kugu caasin doontaa. muuqaalkani gaarsii walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan. ogsoonowna, waxaad maanta kasbato ayaad beri miraheeda guran doontaa. sida aad maanta waalidiintaada u noqoto ayay awlaaddaada ku noqon doonaan. aabbihii ugu dambayntii garab waa uu ka waayay dhammaan awlaaddiisii, asagoo weli aanan ka quusan. laakiin mid ka mida dadka isbitaalka ka shaqeeya ayaa qalbiga u dejinaya oo leh waad caafimaadaysaa, waad bogsanaysaa insha allah.